سلامتي هرمالك يو وحقبتك هالكي مرن يهذا أو حبت ترينا من غريزة وقوم مشغولنا شعب كرير قبل ما توقفوا جيستين كل سود هذا يلا يتبشري مسؤولية قلق وجري هيك قبل كان ويكملين وزير القوى الفضائية لما نهاية كاحي مسؤولية كلا رسمياشة مارياشة لطلياشة له يلا يجوعان تجيبانه يلا يجوعان شعب يقويان يهدي الجيش يجوعان يهدي قبل يجوعان يهدي قربان كي ماذا لو يمكن له يجوعان وخدنا وبجوعي لما نروح كوسو دوينا جعمر ولجنا واسقعها وحن كله كوسو وقبل سومالوا لا إله إلا الكلبريو هذا الكلام لكن هو وحنسألها ما أنت هذا من دورنا بسببي قصيت وعمل سامين وكسر كذي وباقي كفر نصيب درة ولا يرد بجيل لكن وقتها في هالقضاء بكيلها لأنه ما قضاء كاس كيلها على طول فلان كسر هذا ما توزير الكفر كسر كذي شوكا إنه كسر كلام مسلسل محيط قبض الكفر الكبير ما أنت كفر الكبير وحولي يا ولد ما يسترن شني لبعتني سكول والله ما كوي سكول أي سكول السرعة الدكتور الكبير كيانا والله بسوي تمان لقى صوت في ولقى صوت العريس حتى وديك لون يسوي سيدو كلام واحد جرا فصلوا واحد نقول دري أو تطبيق لبعتني سكول إلى واحد نقول دري فصلوا دري أما لبعض فصل نقول دري أما فصل تدع فصل نقول دري تاسو حقبتي أي قبتي مروسم سوا وزير وزارة وحبرشة جمهورية الصومالية وحاجة مروسم سوا حدا حقيقتي ديرر كي لما يسكون أو كي على الدجمة من هذا الشغل أو تصبح لك مليا حروح هاي بستي حروتي وزارة وحبرشة أو كعوي marka laga tago hagista iyo wadsaalinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka la tabiyo wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo isla gobolka ka soo jeeda dibaabeed uu sameeyay lix iskuul waxaa ogtihiin oo iminka ogtihiin uu socdo oo la dhisayo uu gabagaba yahay hoolkii weynaa ee jaamacadda Timcadde ee gobolkan Gabiley lahay oo iminka gabagaba ku dhow من كيبا وسمي كان في سنة مروي تمرود شفتي وحلو هذا واقع كذا تقول ما يكون تعطي وحياتي كلا الدولة الدحيح جمهورية Soomaaliland كقبطي قبل كي ما تشوفنا رنتي واحدة تري كرما عاود وكتيريا لكن أنا صاروا يرير أو قاعدين كسوها قبل كي ما كلا مقعاوي وتوها واحدة يلعبوا مقعديان وكيلا magacyada ma lahayn xafiisyo dawladeed ma lahayn suuqyaal ma lahayn kaabayaashii xaqiijinayay inay jirto dawlad dhexe oo gobolka ka jirto laakiin markii xukuumadda la timi waxaa la dhisay marka laga tago magacaabista barasa bulshada waxaa la dhisay xafiisyadii ay fadhiisanayeen isuduwayaasha oo macnaheedu tahay isuduwa kasta uu yeesho xafiis taasoo xaqiijinaysa inay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland u aqoonsan tahay inuu gobol yahay gobolka Gabiley waxaa la dhisay gobolka xarunta aan anigu maanta fadhiyo may jiri jirin hortay wax yar ka hor ayaa la dhisay waxaana nasiib u yeeshay barasaab yaan bedelay inuu fadhiisto intii barasaabkii ka horreysay hore may jirin macnaheedu waxay noqonaysaa xukuumaddu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo hogaamiyo ayaa dee dhistay waxaa kaloo la dhisay intii aanu joognay xukuumadda joogtay la dhisay wasaaradii waxbarashada waxaa la dhisay wasaaradii maaliyadda waxaa la dhisay wasaaradii deegaanka waxaa hadda socda oo la dhisaya wasaaradii arrimaha bulshada oo aanu dhagax dhignay aniga iyo wasiir xigeenka iyo maayarka wasiir xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada Marwe Shukri Xabiib Soomaaliya kor u soo aragsiyo waxay dadku u bandhigeen in wax laga qabto dooxa aragsiyo gabilkiisii waad ogtiin muddo gaaban oo bila ku siman ayaa taana lagu dhameystiray waxay ka mid tahay waxyaabaha iyo waxqabadka iyo dhowrgalaashaha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee u degan ugu sheegay gobolkan inay wax ka qabato markaan taa ka tagno degmooyinka kale maxaa laga qabtay Gabiley oo kaliya laga qabtay degmooyinka kale oo ogtiin Wajaale waxay maalintii madaxweynuhu kaabeen ku jiray hor dhigtay saddex qodob bay hor dhigay saddexda waxaa ka mid ah isbitaal in la helo isbitaal ay degmada Wajaale leedahay in la helo wadadii aan ogeedeen wadna qabadka ahayd
oo nishalay ugu yidhi maan tegi jirin iyadoo hawada xanuunsanaysa inta maagi jirin halkaa maro waxaa la dhisay ood ogtihiin oo la dhamaystiray waxa kaloo ay ballan qaaday xukuumaddani oo ay dadku ka codsadeen xilligaa inay hesho wajaale biyo waxaan idiin sheegayaa shalay toole in anigu aan la kulmay saraakiisha hay'adda UNICEF oo sida 5 konteenar oo ay ku jiraan qalabkii lagu dhigi lahaa biyaha degmada wajaale aragtiyahankii markii xilka ii dhiibay aan soo maray way joogaan dumarkii ii bandhigay runtii aad maaragta usoo jiitay qalbigeeda waxay ka cabanayeen in kawaan aanay lahayn iyadoo inay joogno qarnigaad ogtihiin iyadoo inay joogno inta jamhuuriyadda Soomaaliya 4 sano jirtay waxaanay lahayn kawaan maanta kawaanka waanu soo qaybnay waanu soo dhagax dhignay maroo waxaan ku sheegayaa kawaanka in shalay la bilaabay dhismihiisii degmada Alay Baday haddii loo tagno degmada Alay Baday waxay ahayd degmo kuwii ugu horreeyay ee gobolka Muqdisho ahaa oo dhiyahay degmadaasi waxaa laga dhamaystiray iminka inay yeelato gurigii martida waxaan la isxaajisay maamulka waxay ogtiin wadadii Alay Badayna in ay dowladda hoose halkana ku dartay iminka 2 kiiloomitir haddana ay u qorshaynayso dowladda dhexena ay kaalinteeda ka qaadatay haddaan mas-uuliyiinta iyo wasiiradiina hayna nin walba uu si shakhsi ah contribution